adduunku mar walba si tartiiba isuma bedela mararka qaar hal go'aan ayaa bedeli kara jihada taariikhda xiisadii xoogeysanaysa ayaa hadda ka dhex ololsan Mareykanka iyo Venezuela taasoo indhaha dunida mar kale u jeedisay gobolka Latin America waa loolan u dhaxeeya quwad weyn iyo dal hodan ku ah khayraadka balse la daalaa dhacaya cunaqabatayn warar kala duwan iyo xogaha sirdoonka ayaa muujinaya in xaaladda amni ee Venezuela ay tahay mid kacsan dhaqdhaqaaqyo military digniin amni oo isdaba joog ah iyo cabsi ku faaftay magaalooyinka waaweyn ee dalkaas dowladda Venezuela ayaa ku dhawaaqday in madax bannaanideeda qaran la halis geliyay ayadoo ciidankeeda heegan gelisay dhanka Venezuela waxay arintani u aragtaa fargelin toos ah oo shisheeye xukuumadda dalkaasi waxay ku adkeysanaysaa in go'aanada gudaheeda iyo khayraadka dabiiciga ah aysan cid kale xaq u lahayn in fargelin ay ku samayso madaxda dalkaasi waxay ugu baaqeen beesha caalamka in la ixtiraamo xeerarka caalamiga ah iyo madax bannaanida dalka dhanka kale Mareykanku wuxuu sheegay in talaabooyinkiisu ay salka ku hayaan amniga qarankiisa iyo ilaalinta danaha istaraatiijiyadeed oo uu ku leeyahay gobolka Washington wuxuu ku doodayaa in xasilooni darro ka dhacday Venezuela ay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha iyo nabadda caalamka oo dhan loona baahan yahay isbeddel dimuqraadi ah khilaafka labada dal ma aha mid maanta bilowday waa mid tobanaan sano soo jiitamaya isla markaana salka ku haya kala aragti duwanaansho siyaasadeed xakamaynta khayraadka shidaalka iyo cunaqabatayn dhaqaale oo cuuryaamisay nolosha dalkaas kalsooni darrada u dhaxaysa Washington iyo Caracas waa mid qoto dheer oo taariikhi ah